halkani waa bartamaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan saacaduna waa 4 ama 10 habeenimo ee saacada geeska Afrikada bari muddooyinkii ugu dambeeyay waxa magaalada laga dareemayo horumar kala duwan oo ay ugu horeyso bilicda magaalada iyadoona magaalada xiliyada habeenkii aad ka dheehanayso bilicaad wanaagsan waxaana bilic soo celinta magaalada kaalin weyn ka qaatay ururka midnimada Hiiraan oo ah ururka aasaasan gobolka iyagoona kaalin buuxda ka qaatay bilic soo celinta magaalada Beledweyne sidoo kalena leerar ku xiray argooyinka iyo goobo badan oo taariikhi ah ku yaala Beledweyne magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta gobolada waqooyi iyo koonfurta waxaana xilligan furan goobo badan oo ganacsi oo ku yaala magaalada Beledweyne bartamaha magaalada ay ku la hadleen warbaahinta qaar ka mid ah ururka midnimada Hiiraan oo ah urur u taagan horumarka iyo bilic soo celinta magaalada Beledweyne magaalada runtii waxaan sameeynay dayactir badan oo dhismayaasha qadiimiga ah ee magaalada ay leed ay ka mid tahay argooyinka oo ay ka mid tahay goobaha magaca ku leh magaalada oo runtii ururku uu ka geystay dayactir muuqda sida irdaamin iyo argooyinka iyo goobo kale oo hadda aan ku soo koobi karin marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii wariyaasha ka shaqeeya Jubbaland TV ayagana sida quruxda badan ay uga qayb qaataan inay soo gudbiyaan taariikhda magaaladu leedahay iyo waxyaabaheeda wanaagsan marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo telefishinada Jubbaland iyo Puntland oo runtii ah laba telefishin oo runtii dadka Soomaaliyeed wanaag iyo horumarada ay ku talaabsanayaan soo bandhigo intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo horumarada iyo bilicda qurxoon ee magaalada Beledweyne waayii dambe runtii aad dhanka kobaca horumarka ay sameeyay anaka ururka midnimada Hiiraan waxa muddooyinka ugu dambeysay wadnaan ka shaqeyno bilic soo celinta deegaanka guud iyo gaar ahaan degmada Beledweyne hadda aan ku suganaanay ururka midnimada inta uu jiray runtii wuxuu ka qayb qaatay sidii loo soo celin lahaa muuqaalka guud oo magaalada Beledweyne sidoo ku noqon lahaa muuqaal qurxoon oo la jaan qaadi kara goobaha casriga ee caalamka waxaan rabaa awalan inaan salaamo labada telefishin ee lagu xusay rabtaan sida Jubbaland TV iyo Puntland TV oo ah ay sheeg laba telefishin oo u taagan shacbiga Soomaaliyeed inay ka qatiraan hadba news-ka ugu cusub wararka dunida ka socda marka waxaan dhihi karnaa magaalada Beledweyne waa aasaaska Soomaaliya centerka Soomaaliya haddii la yiraahdo juqraafiyan meesha ku taal aan ka soo tago siyaasiyan magaalada Beledweyne waxa ka soo baxay dad caama sida Sheekh Jimcaale ee Sheekh Cabdullaahi Ciise meesha macnaha ninkii leeyahay siyaasad ka soo kale aadan cabdi guriisa ku leeyahay madaxweynuhu horeeyay Soomaaliya siyaasiyiinta dadka Soomaaliga waa sida Cabdullaahi Goodax Barre iyo ay sheegeen waa magaalada ka soo jeedaan marka waxaan dhihi karnaa magaalada Beledweyne dhan kasta waa magaalo Soomaali ah base waana magaalo dhihi kara markii ayada ay horumar gaartay amba ay isku toosto kaliya waa marka kaliya ay Soomaali hagaagi karto ugu dambeyn waxa hadlay gudoomiyaha ururka midnimada Hiiraan Cabdi Muumin Iido oo ku magac dheer Cabdi Xiish waxa uu na faahfaahin ka bixiyay ururka midnimada oo ah urur dhalinyaro oo iskood isku xilqaamay dibna u soo celinaya bilicda magaalada Beledweyne isagoona sheegay in ay intaani in ka sii badan ay ka qaban doonaan bilic soo celinta magaalada Beledweyne kaalin weyn ayaan ka qaadanay soo celinta bilicda goobaha taariikhiga ma ahan argadaas kaliya waxaan dayactirka aan ku sameeynay aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale waxa ururku intii uu dhisnaa 4 bilood la soo dhaafay oo qabtay wax badan oo aad u wanaagsan in la qabtana munaasab ay ahayd waxa kamid ahaa inaan qashin badan ka qaadnay xarada daraawiishta oo runaantii hada dad masaakiin ah oo meel ay degan yihiin ay maaragtay ku ganacsadaan aad aan ugu faraxsanahay muddooyinkii dambe magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa laga dareemayo horumar dhanka bilicda ah iyadoo kaalin weyn ay ka qaateen ururka midnimada Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Xuseen Faransa raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland bartamaha